The President, but also to the C8 and to everyone, is that the rules of this process, as set down by the National Leadership Forum, in our view, need to be respected, including the quota for women, which in Hirshabelle we hope means that 11 women will be elected to the lower house. We recognize that there will be political challenges, but as the international community, we believe that despite those challenges, having the rules respected will bring great benefits to a new state and will be a signal to the rest of Somalia and to the international community. marka runtii wada hadal qiimo leh ayaa la dhex maray wafdiga ballaaran ee noo yimid maanta ugu dambeyntiina waxaan isku afgaranay in hadda howlaha doorashooyinkana in la dardar geliyo oo maxuu ahay qabsoomaan xuquuqdii ay dhinaca haweenka lahaayeen sidoo kale in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin iyo in aan waxuu ahaa ka wada shaqeyno sidii Hirshabelle maamulkeeda loo garab istaagi lahaa. Waa mahadsantihiin. AMISOM is here, will support you in terms of security and will support you politically.